shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan hadalladii Muuse Biixi shalay uu ka yiri baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen maxaabiis tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan gaar ahaan ciidanka Jimcaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستو aad adduunka joogtaan dhamaan waxa ku salaamintiin salaanta islaamka muuqaalkeenan waxaynu ku soo qaadanaynaa dagaalka ka socda Puntland sibahan magaalada Garowe dagaalkan dadku waxay moodayaan inuu Puntland ka socdo laakiin dagaalkani waa dagaal shakhsiyeed ama waa dagaal laba shakhsi u dhaxeeya dagaalkani waa dagaal muddo aan yareyn soo bilaabmay waqti fogna soo bilaabmay dagaalkani waa dagaal la doonayo in aragtida reer nugaaleed lagu bedelo ama reer Garowe hadii aynu nidhaahno waayahay waxaan ku tusi doonaa cadaynaya dagaalkani baaxadda uu leeyahay shirqooladii ninka taliya Jimcaale la yiraahdo ka soo badbaaday ee meesha loogu dhagayay adiga arrimo fara badan iyo sidoo kale dawladda federaalku qaabka ay ula socotay dagaalkan ka bilaabmay maanta magaalada Garowe ee ay dhimashadu 3 marayso aawuna 10 ka marayo waayahay xasan sheekh wada ka soo bilaabi doona wax kasta dadku waxay fahmaan marka halka ugu sareysa laga soo bilaabo halka ugu hooseysa xaqiiqda maartay la keeno oo ooduu soo kala sareeyaan ayaa magabta loo kala guraa waayo waxaan ka codsanayaa like share iyo subscribe inaad kanaalka ku sameeyso waayo bal waxaad ila eegtaan xasan sheekh oo ka hadlaya magaalada Garowe bal waxa uu ka yiri Puntland bal ila eega maamulka waxaan leenahay u dhagan nuglaada dadka dhageysta wax garadka indhaar garadka dhageysta dad fiican mas'uuliyadda yaqaano xikmad dawladnimo leh ayaa deegaanka ku nool ee hala dhageystaan leen haday yihiin odayaal dhaqan iyo haday yihiin siyaasiyiin intaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan waayahay muuqaalka waa daawateen dabcan nin madaxweynaha oo maamul goboleed ku sheegay oo isagu madaxweyne yahay inuu 24 saacadood ku burburi karo waa wax aad iyo aad u adag laakiin waxa uu og yahay ee qalbigiisa ku jira ayaa keenay inuu oraahda ku cabiro xaaladda Puntland waayahay arrinkani waa arrin aad soo jiidanayay ama dheera ayuha bal waxaad ila eegtaan ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani jawaabtii uu ka bixiyay hadalkii ninka la yiraahdo Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya bal ninkaasi waxa uu ku jawaabay bal ila eega hadalladii Muuse Biixi shalay uu ka yiri baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne xasan sheekh isla ogaayeen cidna uga baqmayno haddii wax kasta dhacayaan soo ballan ma inaan sarafteena difaacno dadkeenna inaan difaacno diyaar muudiin cidna uga heebaysan mayno inaan difaacno ummadeenna waayahay dhammaan inaa iyadana daawateen ayaa rajaynayaa laba nin oo sidaa isugu jawaabay oo maanta madax ah waxaad arkaysaa waxa meesha yaala in wax weyn yahay soo dhawow hadaba ku soo dhawow arrinka aad u socotay waa kan taliya Jimcaale waxa uu ahaa hota taliya Jimcaale marka la yiraahdo Garowe ama marka la yiraahdo Nugaalba waa xiniyaha Nugaal ayaa lagu magacaabaa marka magaalada Garowe la joogo ninkaasi waxa uu carqalad ku noqday damaca ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani carqalad ku noqday waxa uu isku darsaday ninkaasi kalsooni uu shacabka ka haysto iyo qabiil uu ka dhashay oo caasimadii Puntland degan iyo sidoo kale ciidamo iyo awood u dheer waxa intaa u sii dheer inay dadka masiirka magaalada Garowe ka taliya dabcan magaalada waa la kala leeyahay lama wada laha inuu ninkaasi xiniyahooda yahay ayuu isku darsaday kalsoonina uu ka haysto iyaguna ay ku kalsoon yihiin
waayahay ninkaas dagaalkii laascaanood inuu ku dhinto ayaa loogu talagalay horta intaas ayay ahayd ninkaas waxay horta adiga shirqooladii mid ka mid weeye ninka waxa loogu talagalay inuu dagaalkii laascaanood ku dhinto bal waxaad ila eegtaan horta waxaad maqashaan Puntland baa dagaalamayso ka dagaalamaysa Umar Maxamuud baa ka dagaalamaya laascaanood Ciise Maxamuud baa ka dagaalamaya maxaad u arki weydeen maxbuus Ciise Maxamuud oo la qabtay maxaad u arki weydeen maxbuus iyo fara badan Umar Maxamuud oo la qabtay bal waxaad ila eegtaan taliya Jimcaale lawaanin ciidanka Soomaaliland xataa ka caana oo ay garanayaan bal waxaad ila eegtaan isaga oo ciidankiisii la wada qabtay qaabkii loo qabtayna aanay ka dabageynay bal ila eega ciidanka Soomaaliland markay maxaabiistiisa soo bandhigayeen مطلع عبد الشريع هي حاجات عين بلد كعيسى محمود بان ايوه اوكا maxaa keenay halkan de waxa hartiniman lagu soo kaxeeyo ugu soo hartinimadii markaa maxay ku geysay deena ay qabataan waa ragna waa kala adkaan jireen geesta kale waxa ay ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku dhigeen maxaabiis tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan gaar ahaan ciidanka Jimcaale waxa sidoo kale ay ciidamada Soomaaliland gacanta ku dhigeen hub iyo saanad waayahay wax kasta iyaga ay sacadeynaya oo isku ka sheegaya hadda wax badan waa isfahantay aan waliba ku sii faahfaahiyo aan hoos kugu sii tago ninkaasi waxa uu ahaa dagaalkaasi dagaal kamid ah dagaaladii Soomaaliland iyo ay wada galeen waxa weeye ciidankii garaadadu qaar dagaalkan ugu magac daray dagaalkaas taliya Jimcaale waxa lagu keenay hab maartay qabyaaladeysan oo uu ku yimi meesha inkastoo ciidamo fara badan ay la socdeen waxa jirta in meel afar la keenay ay ciidankiisu markuu dagaalka bilaabmay in asaga uu si daacada meesha u soo dhex araray waxa jirta uu dagaalka adiga u galay si daacada waxa jirta in la hareereeyay maadaama uu dadka been loogu sheekeeyo oo ciidanka Soomaaliland dad meesha quwad kula ay yihiin oo ay cid kasta og tahay oo aan idinka marxaati fuuri karo dagaalkii 2017 ka socon jiray waxa weeye tukaraq ee ay Jubaland iyo Puntland iyo ummadii oo dhan isugu timi ay dhaqaajin weeday oo awoodda qof kasto maanta reer garoowaale ciidanka Soomaaliland awoodiisa uu gaar u og yahay ay jirto inuu ninkaasi soo qaaday dabcan ninka ciidankiisa intiisa badan waa la qabtay idan waa isdhiibeen asagana markii dambe adoo horta ninkaas markuu ciidanka galay oo la ogaaday inuu dagaalka ninkaasi galay telefoonada la isku hadlay waxaana la yiri ninkii taliya Jimcaale meeshii galay uga baxa hal xataa gaari oo gurmada meerin markii dambe waxa lagu maraatiyay ciidan gurmada la qabtay oo waday ka soo wareegayeen waxaas waa been ninka iyo wuxuu wataa in meesha lagu shufbeeriyo ayaa la doonayay laakiin hal mid ayuu ku baxsaday ciidanka Soomaaliland daarooda ka buuxa waa nin la garanayo ahaa dadkiisu la garanayo dadkii markaas meesha laga qabtay wixii aan dhiman iyaguna wax bay kula dileen iyaga isagana waxaan ka dhiman waa la qabtay waa la sharfay halkaas lagu xiray asagana in Yurub haysina uu soo baxsay magaalada garow iska soo magaalada wax iska yimid laascaanood waa dagaaladii u dambeeyay ee meesha la isku bartay ahayd wuxuu ahaa dagaalku ninkaasi ku baraarugay ninka la yiraahdo taliya Jimcaale ayuu ahaa markii dambana waa tiiba bahashi awoodiisa soo tartay ee awoodda la saaray garowe waa kii iskaga soo baxay ninkaasi maxaad hadaba u arki weydeen reer Puntland kala qaar laga qabanayo qaar laga leeyay maxaa u arki weydeen ma arkaysaan kama baxaan ciidanku inta wali ciidanka ay joogtaa kama baxaan magaalada laascaanood abooy aniga xirfad dagaal baan garanayaa uu ku oranayaa ninka reer Puntland runta marka la sheego ee garowe ka yimi Puntland oo isku wadar aniga xirfad dagaal baan garanayaa laascaanood baan qori ka dhexridayaa uu ku oranayaa laascaanood ku dhex jiray idinku jiida gala waxaan jiida jooga ee meelaha marmaraya ee ciidanka Soomaaliland hor fadhiya waa rag dhulbaxad u badan Soomaaliland may soo jiiri kari waayeen laba guuto kamid ah soo jiiri karta oo layn karta laakiin hal mid baa la diidayaa in ummad wali meesha ku agoomowdo oo hadhow tole moral xumaado oo dabcan hooyooyin baa dhalay dad baa la dhashay in moralkaas la diidayaa laakiin laascaanood ciidanka Soomaaliland nasteexun bay deemaartay uga maqan yiri xoog uga maqna ciidanka garowe inta ka joogta laascaanood guryaha dhexdooda ayay wax ka sii qoteen halka taliya Jimcaale hal ninkaas wax meesha loo ninkaasna in ugu dilaa meesha loogu targalay ilaahay baana ka badbaadiyay waanu fahmay marka dagaal qorto dagaal qaafka ku bilaabmay maanta ninkii uu la wareegay meeshii baarlamaanka iyo wixiiba waa been waa laga adkaaday taliya Jimcaale waxaas waa been
maanta runtii baarlamaanka wuu isbaray deni wuu tusay garowe khalkhal buu geliyey weliba sidaasoo ay dadku ku kala dhantaalayeen oo leey war taliya Jimcaale joog waxa weeye ninkii maanta Saciid Cabdullaahi Deni awoodiisa waa lagu tusay magaalada Laascaanood anigu wixii khasaare halkaas ka dhacay mid Ilaahay oo naxariisto wixii halkaa ku dhimatay cidii ku dhaawacday Ilaahay ha boogadhayo laakiin xaqiiqda dadka la gaarsiiya waa waajib adeero xaaladda Puntland sidaas ay ahayd taliya Jimcaale dagaalkiisa noocaas uu ahaa haddaba hal mid ayaa in laga feejignaado aniga shakhsi ahaan soo jeedin la welibana wax garadka Ciise Maxamuud ee nugaal iska leh reer garowe iska leh inankina yar ee taliya Jimcaale horta waxa la ummad marka la laynayo libaaxiyadeeda la laaya dacwadeedana waa loo taliyaa bal maanta suuraysta idinkoo taliya Jimcaale ciidankiisa la idinka laayo oo kadibna idinku isku soo dhacay idinka maxaa qaban kartaan ilaa maanta Puntland reere isku tagay baa leh ninkan taliya Jimcaale waa laga qadan yahay xaqiiqatan waan sheegaya Puntland heshiis baa lagu dhistay Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu rabaa inuu awood inuu u sheegto oo awood maartay ku mariyo iyadoo reerihii wada dhistay aan Ciise Maxamuud ay kamid yihiin oo laga talagelin bal ka warramaanta idinkoo ciidan leh ayaa ciidankiina garowe lagu dhex dagaalamayaan iyagoo bal ka warran la baabiyana maxaad filan lahayd xaqiiqada iyo hadalka saxda ninka ragga waa garanaya laakiin doqon oo qalbigeeda qabiil ku jiro ayay u taala marka wax garadka iyo ashxaasta maaragtay wax ka qaban kara ee dagaalkaas maaragtay ninka ku galabsiin kara ka socda magaalada garowe ee Ciise Maxamuud waliba wax garadka iyo odayaashooda ninka inay kooda yar ku galabsiiyaan dagaalka sida uu doonayna ha loo yeelo wallaahi wablahu talaa si kala male anigu garowe wax yar ka hor baa joogay nin maanta reer garowe saxda ah oo laga dhaadhicinayo doorashada hadii uu xataa helo Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu koonaya nin waxa iska leh waa tookadayadii ay ragaasi taagayeen inkastoo ay waxaas iska hadal ciyaal tahay oo dabcan wadanka dimuqraadiga oo sharci lagu kala baxo oo baarlamaan ay codeeyaan haddana waa wax sax oo mowqifka wax ku dhisnaaya ba noocaas marka dagaal korto waa dagaal noocaas socda ummadii reer maanta garowe qaxitaan bay diyaar u yihiin Ilaahay ha badbaadiyo Ilaahay amaansado waxa way magaalada u qaxi lahayn Laascaanood ayadii meeda khalkhal ku jirta oo Soomaaliland ma qaabilayd marka wallahi haad waa iska adagtay dagaalka garowe ka socdaana waa noocaas aad iyo aad u maasiti muuqaalkiga inta soo joojinaya like gare share gare comment insha Allah wixii reegaaga igula wadaag